لبا أري أو أف عربية لكن علمي نفسي معنى كلا أنت بدن خويا لنكره وداوينت الحزن ووضنا كنا شيء وحلا sadness الاكتئاب نوع depression في صومالي أملا أوروغو أما مروغو ولع والبهار والول يعني رياضة صار لوران كراملا وكو معنى ددوي أري كان لبدا أري اللغة العربية واسكو معنى وكل حيل ديرينون حزن هو مروغو اكتئاب هو مروغو لكن في الشدة والمدة الزمنية بيكو كلا قديسين اكتئاب هو مروغو كوين حزنك حاجة وقتك يشوغيسو iyo marka loo eego xagga xoog badnida ama inta ay ka xoog badan tahay ta kale luqada carbeed حزن الرجل حزنا وحزنا يعني ومرغودي ويان كئب الرجل أي تغيرت نفسه وانكسرت من شدة الهم والحزن ونفتي سابربرتي murugo daraadeed iyo urugo iyo urxumo ولذلك بردولك وكلا waxay dhahdaan اكتئب وجه الأرض أي تغير وضرب إلى السواد حزنه markaynu dib ugu soo noqono markaa murugadu وعاطفة كمدة العواطف الإنسانية يعني waxay dhahdaan qofka bini'aadamka عواطف buu leeyahay iska soo horjeeda oo uu ku muujiyo mashaacirtiisa ama dareemadiisa عواطفtaasi ha ahaadaan مثلا cadho baqe farxad rayrayn raalli ahaanshiyo firdhasho waa عواطف qofka bini aadamka ka soo fusha ولذلك عواطفته dhammaantood ilaahay baa ku abuuray qofka مثلا masalada tan ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay وأنه هو أضحك وأبكى رب سبحانه وتعالى إسقى وحكا قسلية وكأوهية إذن وحن لنا أصل المسألة حزنك هي مرقدة هي اكتئابك أصلها ومن فطرة الإنسان أما قفك بن آدم كأبورك سايك مديهي إلى إن القرآن كوحكت المام يقولنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون آدم iyo intii la socotay markii laga soo saaray jannada waxa la yiri dhulka u daadaga hadii hanuun xaqayga idinka yimaadaba ilaahay subhanahu wa ta'ala cid raacda hanuunkaasi fala khawfun alayhim wala hum yahzanun baqa korkooda ma ahaanin murugana korkooda ma ahaanin siiba cidda rumaysay maalinta qiyaamaha yawm alqiyaama baqa iyo muruga toona qofka korkiisa ma aha muslimka ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka in badan buu markaa xusniga kaga waramaya isagoo shay fitriya ah yacquub iyo murugadiisa baa ilaahay quraanka kaga waramay muuse hooyadii iyo murugadeedii baa ilaahay quraanka kaga waramay bal nabiga alayhi salatu wasalaam iyo murugooyin soo maraa ilaahay quraanku tilmaamaya ومررك قاركود لغا ريبيو ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إلهي سبحانه وتعالى يسوق النبي محمد له الله عليه الصلاة والسلام أيوه حليي ييكم مرغا قلنين ديرين تايور ديرين يان حقا قال لماذا إلهي وحبا ما يلي كريانه إلهي بوح الرب سبحانه وتعالى إن أنا يحظ أمر ديفكو يالن آخر لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أما كي إلهي وأبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أصل المسألة إخوتي مركا وحين لأني حزنك مروغا ليدا لكن مروغدو هدي حد كيدا دافته حنون بي سبدشا حنون كمركا يسبدشا حنون كاسبا ليدا depression أما اكتئاب ليدا
waa qofka oo murugada hilmaami waaya oo dabeetana psychologically fikirkiisu isbedelo oo ay xad xanuun ku gaadho. culimmada badh waxay yidhahdaan erayada ah hamiga iyo qamiga iyo xusnigu waa saddex eray oo isku macno ah laakiin wakhtigay ku kala gedisan yihiin bay yidhaahdaan. xusniga waa murugo wax tegaya, qamiguna waa wax markaa ku haysta murugada ka taagan, humuumta iyo khawfkuna waa waxa soo socdae mustaqbalka ku saabsan. laakiin culamaa'i nafsi qaybo ka midii waxay leeyihiin maya hamiga iyo qamigu waa natiijo ka dhalata xusniga ama murugada ka dhalata. si kale haddaanu tilmaamo, adduunka aynu ku nool lahay waa meel loogu talagalay in laynagu itixaamo. waa meel cidhiidhi iyo dhib iyo wax ku cadhogeliya ay buuxaan. waana waxyaabaha jannadu ay kaga gedisantahay adduunka. jannada ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa laa yamasuhum fiiha nasabun, inaan wax dhibi dadka haleelaynin oo dhibi ku soo gaadhaynin lagana soo baxaynin, bale inaad eray ku dhibo maqlaynin. laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa ta'hiiman ilaa qiilan salaaman salaama. ama adduunku waa mucaanaa, waa mashkilad, waa rabshad. ilaahay baa qur-aan ku leh laqad khalaqna alinsaana fii kabad. qofka bini aadamkaa waxaanu ku dhex abuuray beer xanuun baa la leeyahy. yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaqiih. haddaba maadaama adduunku mashaakilkiisu tiro badan yahay, waxa isweydiinta leh waxa weeyaan qofku siduu ula kulmayaa adduunka iyo mashaakilkiisa. qofku markuu naxo ama boqo ama warwaro ama farxo ama rayreeyo, farxadda iyo rayrayntaasi ama baqaha iyo murugada iyo urugadaasi ama walwalka iyo walaaca qabanaya wuxuu wax ka bedelaa hormoonnada jidhkiisa iyo qofku siduu u fakerayo. maalan qofku marka cabsi badani ku timaado, waxaa ku dhaca qanjidhadiisa qaybo ka midi waxa ay soo daayaan hormoonno ama muudad, dheecaamadaasoo central nerve systemkaaga ama dareemayaasha guuda qofka bini aadamkuu leeyahay awaamir siiya oo tilmaamo markaa maalan qofku in dhiig garaaciisa uu dheereeyo, daqdiga damiku inuu kor u kaco, beerku inuu sukar badan soo daayo, muruqyada in dhiigyo badan la siiyo, caloosha in dhiigga laga joojiyo, dheefshiidkaba shaqada ay joojiso. waayo qofku inuu ama dagaalamo ama cararo ama ayaa jidhka loogu talagalay. sidaa daraaddeed waa inuu helaa muruqu sonkor badan oo uu burburin karo si uu shaqo badan u qaban karo. waa inuu helaa dhiig badan oo soo gaadhi kara. naxdinta aad naxday markaa waxay bedelaysaa jidhkaagu siduu u shaqaynayay. farxadda aad faraxdaa waxay bedelaysaa jidhkaagu siduu u shaqaynayay. murugada aad murugootaa ama walaaca aad walaacdiya walbahaarka iyo warwarka kugu dhashaa wuxuu bedelayaa jidhkaagu siduu u shaqaynayay. stresska, qalaqa iyo idiraabka qofka ku dhaca wuxuu bedelayaa jidhku siduu u shaqaynayay. ilaa xad ay dhici karto jidhku inuu qaado sababaha daraaddeed xanuunno badan oo xataa biological ah oo uu ka mid yahay gastritiska. xanuunadan gastriga la yidhahdo waxa kan inta ugu badani stressiskan baa keena, warwarkan iyo walbahaarkan qofka ku dhaca baa keena. waxaa ka mida xanuunno beer xanuuna, waxaa ka mida xanuunno badan oo qofka bini aadamkaa soo haleeli kara. darisku markaa wuxuu yahay sidee loo daweeyaa xanuunadan tirada badan leh qofka bini aadamkaa ku dhici kara, sidee loo daweeyaa? warwarka iyo walbahaarkase maxaa u dhaxeeya? xadkee markay gaadhaa buu noqonayaa ikti'aab? xadkee buu weli xusniyey sadness inuu yahay laakiin aanu xanuun gaadhin? markuu ammaanan yahay, markaanu ammaanayn? ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qofka mu'minka ahi taacaad iyo cibaado loo baahnaa inuu qabto uu qaban kari waayey, inuu ka murugoodaa wax bannaan inay tahay, bal ee la ammaanay. oo qur-aanka ilaahi wuxuu kaga warramayaa koox nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam dagaalkii tabuuk oo aan haysanin waxay raacaan ama ku dagaalamaan, oo nebiga weydiistay waxay fuulaan inuu siiyo, awr iyo gaadiid inuu siiyo ay ciidanka ku raacaan,
oo dabeetana nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma hayo wax gaadiidaya waxaan idinku qaadatoona ma hayo oo iyagoo ooyaya nebiga ka tegey murugo ay ka murugaysan yihiin inay jihaaday nebi maxamed raacaan calayhi salaatu wasalaam inay ka baaqdeen ilaahay baa qur-aan soo dejiyoo leh walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu ma axmilukum calayhi tawallow waacyunuhum tafiidu min addamc xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun kase la diidan yahay ee aynu ka warrami doonnee xanuunnadana keenaa waa kan adduunka ku saabsan inta badan xoole aad weyday caafimaad aad weyday mushkilad kuula kacday waalidka ha dhintay carruur kaa dhimatay dhibaatooyinku soo gaadhay ka yimaada waa ka ilaahay leeyay maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ila fii kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir likay laa ta'saw cala maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum alasa iyo alxusin rabbi wuxuu leeyahy subxaanah wa tacaala wixii idin haleela ee masiibo ee dunida korkeeda idinku haleela ama naftiinna haleela waxay ahaayeen wax ku qoran kitaabka rabbi oo qadarkiisa ka mid a sidanna waxaa loo sii qoray likay laa ta'saw calaa maa faatakum si aydan uga murugoonin ama aydan uga uurxumoonin wixii idin dhaafay baa rabbi leeyahay subxaanah wa tacaala idan xusniga qaarkii waa shay maxmuudah ama la ammaanay xusniga qaarkiina waa shay madmuuma ama se la caayay nebiga calayhi salaatu wasalaamna waxa uu tilmaamayaa axaadiis badan murugooyin soo maray murugooyinka maalan qaarkoo kooban haddaynu ka tilmaamno sida xadiidka bukhaari warinayo kale markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu taa'if qabtay reer maka markay diinta ka dhegaysan waayeen ee uu raadceeyey meel kale inuu tago oo bal diinta lagaga dhegaysto ee reer taa'if haqiif uu tegey ee reer haqiifna ay dumar iyo carruur iyo wax magarato ku direenee dhagax lagaga soo saaray ee nebigu isagoo dhiiggu ka daaya haddana dib uuga soo noqday ayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وأن دقاقي بو النبي عليه الصلاة والسلام أنا قول مروغيسا حقي وجهي وجهي وما نسقى دقاقي بو النبي عليه الصلاة والسلام ما نسو براروغين أما ما نسو سوكعين أما سو وحمان قرنين إلا يعني قول مرأي مويانا ماشا ليدا قرن الثعالب مركان مرأي سعد كيوم بين سوقادي بو النبي عليه الصلاة والسلام يعني مروغدي هيسي النبي عليه الصلاة والسلام markaasaan madaxa kor u qaaday buu yidhi markaasaan arkay malakul jibriil oo korkayga taagan oo dabeetana la ii yeedhayo oo la faraya in malaga buuraha ilaahay u soo diray oo haddii uu rabo buuraha kan rabbi intuu gooyo in korka laga saarayo duulalka kan أو نبينا عليه الصلاة والسلام ليي ما يولي الرجان قبا وحن كرج قبا دبر كودين إلهي كصو صاره كو إلهي عابد قال قالت بور الحج على قبا ولي نبي محمد عليه الصلاة والسلام مركز وحلي وحن رجك قبا دبر كوده إن الله كصوب بحيه قال ربي عابده وحكم إذا مروغين كي نبي قصامر ما دينو قارك لك تلمامنه markii al-Isra wal-Mi'raj ku dhacay ee uu soo noqday ee Quraysh ay imtixaantay ay beeniyeen ay yiraahdeen waxba ma adarag ee uu nabigu u sheegay inuu intaaba soo maray ayaa la yiri bal way su'aalan ku weydiinayna ka jawaab su'aala la weydiinaya waxa weeyaan bayt al-Maqdis iyo al-Babadis iyo xaq uu kala jeeday nabiguna dahabeen buu soo galo intuu ku tukaday Ilaahay ka dheelmiyay markaas baan kurbaday buu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam su'aalaha la weydiinayay iyo meeshii aanan waxba ka xasuusanin إلهي سبحانه وتعالى وكشفيه مركاسي دبتنا وهبها عبسن باليدو وحي ويدين يم بسيدو دانو أركاب النبي عليه الصلاة والسلام كوا يكوا الله مدي وحي تلمام يان قفكو إنو مروغون كرو لكن تنا إنو كور رمينا كوا ماها تنا إنو كور رمينا وحويان واتو حنونة أو قفك حنون قارسين كرتا حنون كاسي wadna xanuun buu isu bedeli karaa dhiikar buu isu bedeli karaa romatism buu noqon karaa qarxatul macida calool xanuun buu noqon karaa xataa
sonkorowga la sheeguu noqon karaa wuxuu noqon karaa xanuunadaasoo dhan qaar ka mida waxa sababi kara bay culimmadu yidhaahdaan warwarka iyo walbahaarku marka uu xadka gaadho darisku markaa wuxuu ku saabsiisan yahay maxaa cilaaja warwarka iyo walbahaarkaasi waa laba nooc marka horeba waxa keena wax biological waxaan uga jeedaa waa xanuun depression kan qofka ku dhacay waa xanuun marka dambe isla hadal iyo waa li gaadhay laakiin xanuunkan ku dhacay mararka qaarkood culimada qaar baa waxay leeyihiin wuxuu ka iman karaa jidhkiisoo khalalu shaqeeyey ama heredity dhaxaltooyo hore ha noqdo oo familiga iyo caa'iladu ay lahayd ama ha noqdo bay yidhaahdaan maalan alghudda daraqiya qanjidhkan halkan ku jira oo dheecaamo badan soo daayay oo dheecaamadii loo baahnaa aan soo daynina khalkhal ku dhacay ama ha noqdo qofka vitamiinisku B12 iyo wixii la mid ka yaraadeen kuwaasi waa dhan waa wax daakhiliya laakiin waxay yidhaahdaan kanaynu inagu ka warramaynaa kaa maaha waxaynu ka warramaynaa waa wixii ka yimi asbaab khaarijiya asbaabta khaarijiga ay ka timi markaa waxa weeyaan qofkoo mashkilada ku dhacday qofka oo warwar galay qofka oo musiibo intay ku timi musiibadii xijin kari waayey xanuun bay dhashaa marka dambe waxaynu markaa soo bandhigaynaa oo cilaajkaynu ka warramaynaa uu yahay أحد العلماء المسلمين دكتور عبد الله الخاطر وارد الله ونحرسته وطبيب نفسي أنا ها نشاخنا ها رسالة وقري والحزن والاكتئاب لا يدعده إيه علماء ذاك لا وحي كردية بين صابرينا دوني ده حنون كان يروح ما أنت كمدي حنون هذا وتر هذا بدل حنون هذا سايكولوجيكال كما سايكاتريك اسكوبوقة صومالي ده بدك تشوف تايم كبوفس بين هذا qofka hebel boofis baa ku dhacay xanuunadan isla hadalkii warwarkaahi waxay ka mid yihiin xanuunada dunida ugu tirada badan leh walidaalka waxa la tilmaamaa Yurub oo kale afartii qof baa qaba bay yiraahdaan afartii qof ee kasta Yurubiyana mid baa liqa daawooyinkaasi loo liqo xanuunada nafsiga waxaad baahidooda ka garanaysaa axad ducaat sacuudiyiinta wadaadadan ducaada mid ka mid ah buug yar qoray oo bixiyay la tahzan waxay dhahdeen waa buuga ugu tabcad badan ee af carabi ku qoran 3 milyan oo nusxa laga iibsaday wadaadkiiba halka buug buu ka taajiray la tahzan ba buuga la yiraahdaa waxay isweydiinta leh dadku hadaan ay xanuunka wada qabin ama baahidan itmiinaankii baa la waayay weeyaan dadku xasiloonidii iyo deganaanshihii qalbiga ahaa baa lumay markaasaa warwariya walbahaar adduunyo israaciskan baana intiisa badan keenay maxaa cilaaja baynu leenahay marka maxaa dawaa ugu horreyn waxaan leenahay kitaabka qur-aan iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wiqaayo iyo cilaajba uu ku soo arooray wax lagaga dhowrsado warwarka iyo walbahaarkaasi wuu ku soo arooray oo marka horeba dafciya oo qofka laazima aanu ku dhacaynin insha allahu tacaala kaa khaarijiga aynu ka warramayno waxaa kaloo ku soo arooray wax la iskaga daweeyo oo qur-aan iyo xadiidba leh dhowr qodob baynu markaa tilmaamaynaa qodobka koowaad waxa weeyaan waa caqiidada islaamiga qofka muslimkii uu ka warwariyo walbahaar yaryay qofka aan muslimka ahayn caalamul islaamina wuu ka yaryay isagoo ka mashkilad badan haddana wuu ka xanuun yaryay marka loo eego xanuunada warwarka iyo walbahaarka ku saabsan iyadoo ay ahayd inuu maadaama uu mashaakilka yaalla ka tiro badan yahay uu ka tiro bato ayuu haddana ka yaryay baynu leenahay sababtu waa maxay sababta koowaad waxaanu leenahay waa masalatu alqadaa'i walqadar qofka mu'minkii wuxuu rumaysan yahay oo caqiidadiisa ka mid ah alqadaa' walqadar wuxuu raalli ku yahay ilaahay qadihiisa iyo wixii uu qoray wixii dhaca wuxuu garanayaa wax rabbi qoray inay ahayd waana ka nebigu le calayhi salaatu wasalaam waclam ana alumma low ijtamacat an yanfacuuka bishayin lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu allahu lak
dad oo dhamme hadday isu tagaan oo rabaan inay ku anfacaan kuguma anfici karaan wax rabbi kuu qoray mooyaane hadday isu wada tagaan oo rabaan inay ku dhibaanna kuguma dhibi karaan wax rabbi kuu qoray mooyaane waataynu aayadda hadda soo akhrinaynay ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir wixii balaayaba dhacaba ilaahay yidhi horaan u qoray waana ilaahay agtiisa wax ka fudud maxaa sidaa loo yeelay likay laa ta'saw calaa maa faatakum baa ilaahay leeyay si aydan uga murugoonin oo uga warwarin oo uga walbahaarin wixii idin dhaafay walaa tafraxuu bima ataakum sidaydan ugu kibrin oo u qooqin wixii uu idin siiyo hadduu ku siiyana inaad aayar ilaahay u mahad celiso waanad qooqin berriba way lumi kartaaye haddaad weydana inaad waxba murugoonin waad tidhahdaa alxamdu lilaahi calaa kulli xaal ilaahay aad mahadiso subxaana wa tacaala idan waa dawo qofka mu'minka ahi caruur ka dhimatay xaas ka dhintay shaqo uu waayey makaano uu waayey warwarkiiyo walbahaarka ay ku abuurtaa xanuun kuma noqdo in western society wadannada reer galbeedka waxaa caanka ah recessioniskan dhaqaale markay dhintaan intaas oo dad aba isdila waayo boorsadii baa khasaartay uu lacagta gashaday dabeetana waxaa la odhanayaa maanta waxaa isdilay intaasoo dad ah sababtu waa maxay boorsadii lacagta khasaartay meelahan suuqyada lacagta markabu soo raraabaa degay inay waashaan oo dhakhtarka la dhigo iyo inay isdilaan labada midubaabay noqotaa inuu kaws kaga siiyo oo intixaar uu sameeyo suicide iyo in waali dhakhtarka lala dhigo ama qofka muslimka ah inkastoo ay xanuun ku beerayso hanti uu waayey ama qof uu jeclaayo ka geeriyooday ama kan laakiin durbadiiba wuxuu rumaystaa in rabbi qadaray dabeetana wax weyn kuma noqoto alqadaa walqadar iimaanka la rumeeyaa markaa wax badan buu ka taraa shayga labaad aynu leenahay wax badan buu ka taraa waxa weeyaan aliimaanu bilyowmi alaakhir oo qofka mu'minka ahi wuxuu rumaysan yahay wax kastoo dhibo oo la timaada adduunkuba inuu wax yar yahay oo macno badan aan lahay wax qiimo leh markaad weydaabaa dee la naxaa laakiin adduunka gebigiiba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam low kaanat addunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuuda ما سقى كافرا منها شربة ماء حديث إمام الترمذي ورنا الشيخ الألباني صحيحة كنت المامية أدون دما انتبه إلهي أكتي هدو قرب كناعة كاللقية كناعة لقيب قيبية كناعة أنا وفايدة لهين أي هدنا لقيب قيبية وحلت المامي قرب كيد أدون دما انتبه ليلة هدو كناعة قرب كيد إلهي أكتي كتشوغو قيمة انت لك هدو كاللية هاي قال كوبيا كما سيين باليري قال لقما ورابيين إذن قفك مؤمنك وحو الرميسيه أدون كوبا قيمة لو ورورو وحا قرب كناعة كير دي الله مواشو سادر أدد قفك مؤمنك وحو الرميسيه آخره ولذلك من النبي وحو عليه الصلاة والسلام حديث كلا إمام الترمذي ورنيه إسنا الشيخ الألباني صحيح كنت الماميه من كانت الآخرة همه نك ورور كيسو آخرية هي إلهي سبحانه وتعالى جعل الله غناه في قلبه إلهي غني نمديس قلبي سيالا غني نمد هو قلبك ما هك عنت وحا كجرا قعنت وحا كجرا مرر بدن إيمان لان بابا لغا سيقادا هنغوري سو الدنيا ما وقت كبليان كايستا بليان كلو رادين يادي بليان كيسو ما موقضه قفك بني آدم كي انت بدن انت قعنتي سكجرته هي مشروع وكفكر هي مركزته مشروع وكفكر يا وين هذا تكون دولار هيسته waxaad ku jirtaa project 10,000 dollar baad wada markaas silada talo sagaalka kale ayaa ku dara waa dukaan aad u fiican baad dhigan lahayd ka 10,000 haysta mashruuc 100,000 ku jira ka mashruuca 100,000 haysta wuxuu wadaa mashruuc milyana idan qofka bini'aadamkii hantida jeebkiisa ku jirta marnaba kuma filla وإلا ددتك أنت دركتها وإسكا سيحان لا يددي كله تكفلن يهاي تدبدن بورا الله وروحي عن عوني لهين تنكدم أنا يوانا استاي وانا وسك فريسانية بحب دالي ما هي لكن بني آدم عين كماها ولذلك بقى النبي عليه الصلاة والسلام وحلي إنك آخر همجي ستهي غني ما إلهي قلبي سياله
wixii ka kala daadsan oo dhan ee adduunyana ilaahay waa u soo ururiyaa ninka adduunyo hamigiisa ka dhigtana faqri baa labada indhood loo saaraa buu nebigu yidhi adduunna waa ka kala yaacaa unoo waa raadcadeedunbuu ku jiraa ma joogo idan qofka mu'minka aakhiro rumaysani adduunkan hadduu wax ka waayo ama wax dhinac maraan ama wax ka xumaadaan wuxuu rumaysay in ilaahay aakhiro ay ka weynto oo aakhiro raadcaynayo waxaa ka mid ah masaa'ilka caqadiga ee qofku inuu itmiinaan qalbiga ku dhaco keena aliimaan biasmaa'i illaahi wa sifaatih ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa waa wanaagsan rumaynta la rumeeyo oo ah marka aad rumayso ilaahay subxaana wa tacaala huwa almalik almaalik ilaaha boqorka ee wax walba isagu hantay inuu yahay casiiska ee xakiimka inuu yahay waxaad rumaysan tahay lilaahi maa akhad wamaa acطaa waxa uu ku siiyana inuu isagu leeyahay wax uu kaa qaadana inuu isagu leeyahay dee adigaa walba waxba maad lahayn rabbigii kaa qaaday rabbigii ku siiye haddana qaaday qofka rumaysan inuu rabbigii maaliga yahay rumaysan rabbigii inuu xakiim yahay oo wax kasta halkuu ku suuban yahay dhiga walow adiga aanad markaa kuu muuqanin qofka rumaysan rabbigii inuu yahay raxiimun waduud mid naxariis badan wax kasta oo uu sameeyo adiguna naxariistaadu ku jirto walow muuqaalkan dhow aanay kuu muuqanaynin asmaada iyo sifaadkaasi qofka rumaysani dhibaatada ku timaadaa warwar kuma hayso waayo wuxuu rumaysayey ilaa xikmad la sameeyey qisadii khadir iyo muuse kugu filana qur-aanku tilmaamayo khadir wiil yar buu dilay oo rabbi faray inuu dilo aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsi buu muuse ku dooday war ma naf baad dishay aanad naf u dilin shay aad u weyn oo la inkiraabaad la timi buu yidhi markii dambe khadir uu sharxayey wixii muuse uu fahmi kari waayey wuxuu u sheegay waama algulaamu غلامك فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا إن كان ير أن دلي بولي به يهو يدي لبقف مؤمنا يهايا وانا يتشعلايين كالقعل كي يهيين وحانو كعب سنة يبولي إني ويداريان بحقه وقال لما هي مشكلة دا يوغيستان دبتنا الربا الربا وحكا خير بدنا وغفي عن الرب السيو ظاهر كوا الماء دنتي والد ilmihiisa ka dhintay laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qadartiisa waxaa la tilmaamayaa inay sidani khayrkuu ku jiro marka qofka mu'minka ahi ee rumaysan ilaaha tadbiir kale dunidan maamula biyadihi alkul wax waliba ay gacantiisa ku jiraan haddana afcaashiisa ay wada xikmadda iyo cilmiga iyo khibrada ku salaysantahay wuxuu sameeyey inay waxsan yihiin unbuu rumaysan yahay qofka muslimka ahi inaanay wax xuma ku jiraan aanay ahayn sida daraaddeed dhib uma arkayo waxaa ka mid ah qofka mu'minkii inuu rumaysan yahay noloshaba inuu u arko inay imtixaan tahay maadaama uu arkayo noloshu inay imtixaan tahay inuu adduun waayo ama xoolo waayo ma sheegayso in rabbi necab yahay ama in dhibi soo gaadhay bale waxay sheegaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم إلهي دول هدو جعل هو اتحامه والله اتحامه يا وحل إيجا بل أنت ربي كوكلسوني dhaqaala laga itixaamaa caruur baa laga itixaamaa adduun baa laga itixaamaa mashaakil kale soo gaadha nolosha ka hor timaada xadiidka imaamu axmed baa warinaya saxiix iljaamici saqiirkana uu ku yaala waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu leeyahay ashaddu nnaasi balaa'an alambiyaa uma saalixuun uma alamhalu falamhal mafhuumka uu qofku nolosha u arkaa waxay tahay dadka waxaa u dhib badan nebiyada inta nebi dhib soo gaadhay qofay soo gaadhay ma leh nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inta dhib soo gaadhay gaal baa ka xoog batay oo cadaadiyey oo uu ka hijroodoo baxsaday oo ka daba duulay oo meel cidlaa uu ku qabsatay oo gaajo qabsatay oo gaajo daraaddeed nebi moxamed laba dhagax buu caloosha ku xidhay min saxaabiya intuu u yimi yidhi ilaahay rasuulkiisiyo bal waxaan haystaday gaajada beerku ka qaaday marada saxaabigu isagoo hal dhagax xidhan nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam maraduu caloosha ka qaaday saa laba dhagax baabuu nebi moxamed xidhan yahay
idan gaaju soo maray oo ciil gaaleed buu soo maray oo dhib buu soo maray oo dagaal buu soo maray oo wax walbuu soo maray ambiyada kale qur-aanka ilaahay kaga warramayaana sidoo kale bay ahaayeen walidaalika baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay dadkaba waxa uu imtixaan badnaa nebiyada uma saalixuun kuwa wanaagsan baa ku xiga uma alamhalu falamhal buu nebigu yidhi siday dadku u kala fadli badan yihiin bay mararka qaarkood u kala imtixaan badan yihiin xadiidka imaamu tabraani baa soo saaray saxiixuljaamici saqiirkana waa ku qoran yihin idan waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy qofka haddii diintiisa xoog uu ku jiro beladaa loo kordhiyaa buu nebigu yihi imtixaanka hadday diintiisu fudayd ku jirana waa laga fudaydayaa imtixaanka buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam isna saxiixuljaamici saqiirku ku qoran yihin arrimahaasoo dhamme waxay tilmaamayaan iyaguna inaanu qofka muslimkaa wax warwargeliye ahayn walidaalika balaayooyinka dhaca qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay in ilaahay dembi kaga maydho oo nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixeynka ku yaalay maa yusiibu lmuslima min nasabin walaa wasab qofka mu'minkaa ma haleesho daal iyo wasab marad bukaantoona ma haleelo walaa hamin walaa xusn cafwan waan ka xumaa inaan idinku gooyo waxaa la leeyahay CF 130419 Toyota Y waxay xanibaysaa dadka laga qaado gaariga lamba baledkiisu yahay CF 130419 Toyota Y jazakumullahu khayr Toyota nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minkaa wixii daal iyo dhib iyo xanuun iyo hami warwar iyo murugo haleela ama adaa ama qami dhib oo dhan mid psychological iyo mid physiological yacni qofka wixii haleela ee jidh ahaan u haleela xanuunada iyo mashaakilka ku dhaca ama wixii maskaxaan u haleela ee warwar iyo walaac iyo walbahaar iyo tiiraan iyo urugo iyo urxumo ku dhaca miday doontaba ha noqotee qodaxi xataa ma muddo buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ilaa iyo dembigaa ilaahay badh kaga maydha marka qofka mu'minka ee rumaysan mushkiladda qabsatay in dembi laga maydhayay dee kuma keento warwarkaasi inuu bukoodo xanuunsado buufisuu ku dhaco walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa intaa waxaa usii dheer hadduu ku sabrana inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum dadka sabra ajarkooda wuxuunbaa u oofinaya rabbigood isagoo ah baa layidhi bikayri xisaab mid la koobi karo isagoo aan ahayn waa kii nebiga calayhi salaatu wasalaam haweenay madow oo suuxaysaa u timi cudurkan suuxdimaa la ydhaha qabta waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waan suuxaa ilaahay ii bari inuu xanuunkan iga qaado nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad rabtana rabbaan kuu baryi haddaad rabtana waabaad iska sabriyo jannaad yeelan waxay tidhi oo xanuunka haddaan iskaga sabro janno ma helaya ha baa la yidhi haddaad ku sabrto jannaad helaysa bes ilaahay rasuulkiisiiyo waa sabrayaa bay tidhi xanuunkaygaan iska qabayaa laakiin midh kale ilaahay iga bari marka aan suuxo ayay cawradaydu muuqataa ee inaan ilaahay cawradayda kashifin oo aanay muuqanin intaa un ilaahay ii weydiy nebigu calayhi salaatu wasalaam intii buu ilaahay u baryay saxaabadu waagii dambe wuxuu odhan jiray qofka raba qof ahlu janna inuu arko buu ibnu cabbaas odhan jiray islaantaa madooba halkaa fadhida arag islaantani waxay janno ku mutaysatay waxay aqbashay imtixaankii alla imtixaamay inay ku sabirto iyadoo aakhiro ajar ku raadinaysa imtixaankii ilaahay imtixaamay innaga waxaa laga yaabaa dhammaanteen xanuun yara hadduu inugu dhaco calacalka iyo warwarku inuu inaga tiro bato stress iyo qalaqa inuu inagu rido laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy haddaad iska sabirtid ajar baad leedahay waxaynu sheegaynoo dhammi waxa ay tilmaam ka yihiin masaladuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min qofka mu'minkaa arrinkiisaaba yaab le buu nebigu yidhi waayo arrinta qofka mu'minka oo dhammi waa wada khayr cid kaloo arrinkaasi u sugan yahayna ma jiro waayo hadduu badhaadho iyo barwaaqi iyo nabad helana
ومهدنقه هذه الدبي مشكلة دي سوى قادنا وصبرا أرنكي سوى مركا ووضع خير بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أدونك أنت تشوكتوا ممتحن باطي وحل قوقو اتحاما أدو الدورين ميسيد إلهي بالدورة إلهي باكو دورة يمتحان كو نوعيه أديك وحا كسارا امتحان كستوي ما دا نوع الدورة بها النقضي جوابتي صح هيدنا بحسه أدو أرضي وراق لو ديباتو امتحان للربين وقره امتحان كو نوع النقضي يد معلن كان صوت دورتو سوقره أديك إن تكجوابتا لغا ربا أدون كان أديك وحا لقو كانين لقو اتحامه ابتلاء أما امتحان كاغو نوع النقضي إلهي بالدورة سيدو أنبياء دبا وقو دوري أنبياء القرآن كوحي نوغا ورميا نبي بقرة ومضحة وهنتي حول لسيي والدولة دنا هستا والنبينا أي الرسول نبي سليمان يا داوديو صحيح كماها وحلا ينوغا ورميا نبي الله أدون صدي وأدون من نغضيبا نبي يوسف يا قرآن كورميا وحا قرآن كورميا نبي اللي بينيي واللي إريدي وعيمدو فرضي سيدي النبي موسى يعيد لم يتكاهي waxaa quraanku ka warramaya nabiyo dagaal laga furaystay oo wax kasta isiri sheega oo 950 sanadood diin sheegayay oo wax soo raaca waayay ilaa qaliilan mooyana saa quraanku warramayo waxa quraanku ka warramaya nabiyo xanuun lagu itixaamay nabi ayuub quraanku ka warramaya oo nabigu kaleey salaatu wasalaam leey 18 sanadood buu jiifay ilaa dadba iskaga wada tagay idan imtixaanka adigu dooran maysid imtixaanka ilaahay baa dooraya adiga beej baa ku soo baxaya ما حول النقي ما مامل نقي ما بكان نقي ما وحدون النقنية أديك بيتك كو صوب حال الربا جواب صح إن تكبحسه هدو برواقية برارة نقضنا إن مهدنق هي شكر كلتي مادي وعبادة التي مادي نبي سليمان والله يتحامى حولا لغو يتحامى إلا يمرك قاركود واركي امتحان هذا قار كودين يقرب مرين وانتو وحي بلا يولي له امتحانك يكردي ولو كردي امتحانك وربي اوزعنا ان اشكر نعمتك التي انعمت علي كدعي سنيه الى واحد نمعي دبتين كم هدعي ليه اياكو ويدي سنيه وحلنا مركا قفك مؤمن كارنكي سودمي وخير ولذلك وحلنا وروركيه والبهاركيه ولاعه وحا أبوره إيمان درده قفك آخر الرميساني نبي عليه الصلاة والسلام حليه أكثروا ذكر هادم اللذات وروح أبضي سامبو النبي عليه الصلاة والسلام كنلش معان كده قوية جيري دبضية جيري لما حصوصت أبو النبي قولي إيضا نلال عليلية لغوشره إلا ويبالارتاه nolol ballaaran iyadoo lagu jirana lama xasuusto ilaa way ciriiriyoontaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mar haddaad geeri xasuusan tahay dhadhan badan ma leh biisada iyo macmacaanka iyo intaa isla dhacaysaan geeraa ka dambaysa haddaad gaajo iyo rabshad iyo mashkalad ku soo martayna wax weyn ma aha sawaaba la iska qabanayaaye imka way kugu jirtaayo way gaajoonaysaa une waxa ka dambeeya sakaraatulmowt iyo dhib kale idan waa haadimu ladaat warwarkiiyo walbahaarka wuu yareeyaa qisas badan bay culimmadu meeshan ka warramaan laakiin aan hal qiso idin tilmaamo gabadhii saxaabiyadda ahayd ee alkhansaa la odhan jiray waa gabadh jaahiliyadii hore soo noolayd waxaa la yidhi gabay badan may aqoone 2-3 bayd bay tuuri jirtay waagii hore dabeetana walaalkeed baa la dilay walaalkeed markii la dilay ayuunbaa gabay laga soo daayay gabayga dee dadku waxay idhahdaan marar badan ciilka iyo murugada iyo tiiraanyada keenta gabay baa khansa laga soo daayay waxay ka mid tahay carab marka gabayada qaybta arrathaa la yidhaahdo baroordiiqa gabayada la yidhaahdo af soomaaliga kuma badna soomaalidu gabayada baroordiiqa la yidhaahdo kuma badna haddaad raadiso wax yar baad soo helaysa laakiin carabta dhaqankoodii aad buu ugu badnaa islaantan khansaa la yidhaahdaa waxay ka mid ahayd gabayada baroordiiqee carabiba taqaano kuwa ugu badan gabadhii tirisay walaalkeed baa la dilay
ilaa xad bay gabayadeedu gaadhsiisnaayeen ay tidhaahdo yudakirnii طuluucu shamsi sakhran wa abkiihi likulli guruubin cadceed kastoo soo baxdaabay tidhi waxay xasuusisaa walaalkay sakhar ahaa cadceed kastoo dhacdaana way iga oohaysaa weli waa baryay iyo gabal dumayba sakhar baan ku xasuustaabay tilmaamaysaa walowlaa kahratu lbaakiina xawlii calaa ikhwaanihim laqataltu nafsi bay lahayd haddii lala yahay dad badan oo walaaladood dhinteen oo agtayda ka ooyaya haddaanan kuwa ku sabrayn oo arkayn bay leedahay beri horaaba nafta iska goyn laha ee markaan arkay qaar kaleoo walaaladooda la dilo oo oohinun ku gaabsaday ayaan anna isidhi bay leedahay oohin ku gaabso islaantii sidaa ahaydee walaalkeed sakhar waxa gabay la yaqaana af carabiga culuum albalaaqa lagu daraaseeyo adabkiiyo balaaqada gabayada rataaga ugu tirada badan le islaanta leh ayaa islaamtay markay islaamtay bay iyadii iyo inimadeedii waxay yimaadeen dagaaladii waaweynaa ee islaamiga xarbi alqaadasiya dagaalkii qaadasiya la odhan jiray ee beershiya dagaalkii ugu weynaa ee iiraaniyiinta lagu jebiyey furuska waa dagaal uu hogaaminayo sacd ibn abi waqaas axad alcashara almubashiriin saxaabo badanina ay la socoto 30 kun oo ciidan muslimiin oo saxaabo badan baa jooga 100 kun oo gaaleedna xagga kale joogaan dagaal adag oo dhex maray waa dagaalkii ugu weynaa ee beershiya lagu burburiyo ayaa muslimiinta dhex maray iyo nimanka gaaleed khansa 4 wiil oo ay dhashay baa marka kan muslimiin oo dagaalka ku jira hal subax baa 4tiiba la dilay 4tii wiilba waa la dilay dabeetana khansa baa loo yimo waxa la yidhi wiilashaadii 4ta ahaaba maantay go'een maantay shahaado qaateen waxay ku jawaabtay ilaah baa mahad iska leh waxaan si rajaynayaa in rabbi subxaanahu wa tacaala aakhira nagu kulmiyo nin walaalo ana intaasoo sannadood bay gabyaysay 4tay dhasho maalin qura wada go'ayna waxba may noqonin maxaa u dhaxeeya waana iyadii uun habartu waa habartii salaantu waa salaantii waxba iskama bedelin waxa isbedelay iimaan islaantu waa islaantii waa qof dumara dumarku way ka depressionka way kaga badan yihiin baa la yidhaha ragga mashaakilka way uga jilicsan yihiin waxaa kaloo la yidhahaa qofku markuu da' sii gaadhaba mushkiladda wuu uga jilicsan yihin oo ninka dhallinyaradii waxaa laga yaabaa inuu is idhaahdo weli jaanis baad haysataa laakiin nin 60 sii maraya hadduu xoolo waayo waxaad moodaa inuu is leeyahay noloshu dee waa iska soo gebagabay wakhtigaad xoogsan lahaydna soo dhaaftay way ku badataa baa la yidhaahdaa qofku markuu da'du sii weynaado iyadoo da'deedii soo kortay oo weli gabadhiiya 4 mar laga wada dilay markaasaanay waxba iska bedelin waxay leenahay sababta waxa weeyaan waa iimaanka qalbiga degay iyo caqiidada degtay qodobka koowaad markaa waxaan leenahay daawada ahi waa caqiidada qofku uu si fiican u fahmo qodobka labaad ee daawada ahi waxa weeyaan waa attaqwa walcamal الصaalix ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay man camila صaalixا min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min qofka camal suuban sameeya ee lab ama dhadig ah isagoo mu'mina falanuxyiyannahu xayaatan طayiba waxaanu noolaynaynaa baa ilaahay leeyahay nolol fiican walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun aakhirana wixii ay camal samaysteen baanu ka abaalmarinaynaa nolosha fiicani waa maxay bay yidhaahdaan culimmadu waxay yidhahdaan nolosha fiicani waa nolosha sacaadada iطmi'naanka leh waa nolol sheegaysa deganaanshiiyo inuu qofku deganaado oo aanu warwarin oo walaacin oo walbahaarin taa macnaheedu waxa weyaan qofku hadduu cibaadadiisu fiicnaato dikrigiisu bato ilaahay uu ku xidhnaado alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub ayaa ilaahay qur-aanka ku leeyahy ilaahay xuskiisa ayaa qalbigu ku xasilaa qofkii cibaadadiisa iyo khayrkiisu bataa u xasilaa waxaan leenahay waxyaabaha keensanaya in iimaanku in la daweeyo xanuunka kan waxaa ka mida nabiga calayhi الsalaatu wasalaam camalkaas saalixa iyo iimaankaas iyo dikrigaas iyo aakhiro rumaynteedu wax badan bay bedelaan
waxaa la leeyahy weli gawaadhaa laga cabanaya gaadhi CY 71616 oo blue ah oo Corolla ah oo moodalladii gaboobay ah halkuu yaalaha laga qaadaa la leeyahay gaadhi CF ah oo 130419 oo caddaan ah oo Toyota ah isagana ha laga qaado meeshuu yaallo qofku adduunka siduu u arko أحد العلماء الصالحين إبراهيم بن الأدهم نين لو رنشري وعلماء واوينيت كمدا سفيان الثوري الرجل وقتها كمدا أي وحو رنشري باليدي نين كان غير العقل واسل كيس كذا شيء لكن أدونك يا وحين تسكجه هجرودي وكيمي برجة فوق أيو حجاز يا شام يدل كم بوسكيمي وحيد هذان وحا هانشري دتك زهدiga ama tasawufka u banbaxay oo ah mid kitaab iyo sunno ku salaysan oo saxiixa wuxuu isku dayi jiray inuu xamaasho isaga xamaalan jiray dushiisu ku xamaali jiray dadku beeraha u ilaalin jiray qoys lacag lu ka dhashay uu iskaga yimi waxaanu ahaaba yiraahdaan nin aad u cibaado badan oo mustajaab dacwa nin ay aimada waaweyn markay arkaan waxay yiraahdaan jalsada uu fadhiyo Sufyaan Thawri markuu soo fadhiisto hadalka uu joojin jiray bay yiraahdaan amiirul mu'miniin fi alhadith nikiha Ibrahim ibn al-Adham waxa la yiraahdaa wuxuu oran jiray weerihiisa waxa kamida wallahi inna la fi ni'ma law ya'lam biha al-muluk wa abna'u al-muluk lajaladuna 'alayha bisuyuf ni'ma ku jiraabulayay ilaahi absidi iyo taa'adi ayaanu ku jiraa iyo deganaanshiyo hadday ogaan lahayn buu boqorada iyo kuwa carruurta boqoradu dhaleen seef bay nugula dirir lahayn laakiin waanay garanayn buu leeyahay waxaan oo nicmo adduun iyo xoolo iyo isku qabsi adduun iyo baabka uu ka tagay waxa la yiraahdaa aabihii markuu dhintay xoolo badan buu ka dhintay dabeetana nin adoomihii kamida aabihii ka dhintay oo 10,000 dirham sida ayaa isagoo jihaad ku sii jiray baa la yidhi buu u yimi wuxuu yidhi aabaha uu geeriyooday xoolo badanna uu ka geeriyooday intana waan sidaa 10,000 anna waxaan ka mid ahay adoomihii aabaha wuxuu ku yidhi intuu eegay baa la yidhi adiguna xor baad 10,000 adigu ku tagoo qaado nabadgelyaadna isna wuu xoreeyay 10,000 uu sitayna isagu siiyey yani zuhdiga la sheegaya kaas buu ahaa aan adduun qiimo la lahayn kuwaasi waxay ahayd mutma'in alqalb waayo cid bay isma haysanin dadka dunida ku nool iyo waxa gacantooda ku jiriya waxay ka waramayaanba meel dhow bay u arkayeen in dad la xuso may arkayeen waxay arkayeen rabbigood la xuso ilaahay xuskiisa iyo amaantiisa mashquul ku ahaayeen saadaraadad reer nabi aadam waxba kale ma dhaxaynin waa dad mutma'in alqalbiya oo saada ku nool buufis kuma dhaco waxa kamida waxyaabaha buufiska reeba ducada badan iyo tasbiixda badan والنبي عليه الصلاة والسلام حليه قفك كد عيسته اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال إلهي سبحانه وتعالى وكفر فره وأنا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولبتن وحيد هذا والدعاء وقائية قفك كد عيستكم وبدعه كقد عيسته دعاء علاجي أنا وحكم بين حديثك كلاها ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدل مكانه فرجا نبي عليه الصلاة والسلام لبدا حديث منا وحليه هي والدعاء وقائية قفك كد عيستكم أدعى وحكني منا وحل لا يقف كدعاء هم يور كدعاء الدعاء آخرية إلهي بكفتشية إلهي ندي النبي يسوع حكولي عليه الصلاة والسلام ولقد نعلم أنك يضيق صدرك
bima yaquuluun waxaanu ognahay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala inay laabtaadu cidhiidhiyoomayso oo aad xusnigaasi dareemayso waxay ku hadlayaan iyo cayda iyo ceebta iyo waxay kaa sheegayaan daraaddeed laakiin ilaahay wuxuu ku leeyahay fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin ilaahay u tasbiixso adigoo ku dheehayo ku maraya rabbi xamdigii kuwa sujuudana ka mid noqo rabbigaana caabud inta geeriye kaaga imanayso taas baa ah ama weedhihii nebiyullaahi yuunus uu lahaa laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin waxaasoo dhammi waxa weeyaan waa waxyaabaa lagu daweeyo waxaa ka mida bay culammadu yidhaahdaan inaad xasuusato adduunka aad ku nooshay dhib kastoo ku haysata mid kaa dhib badan inuu jiro qoladani cilaajka nafsigaa samaysa culimmada psychologiguna waxay idhahdaan waa cognitive bay idhaahdaan therapy waa qofka in la qanciyo amase inaad rumaysato aswa ilixtimaalaat qoladan dadka dawaysa psychiatriga iyo psychologigu dadkooda buka intay isugu yeedhaan meel ayuu dhakhtarku dhex fadhiistaa dabeetana mid walba waxaa la idhaha dhibtii iyo mushkiladii ku qabsatay ka waran markay isaga warramaan qaar bay arkaan dabeetana qofbaa wuxuu is idhahaa warile adiga waxba kuguma dhicina kuwanbaa balaaya qabsatay midba markuu mid kale balaayo kasii weyn ka warramo waa ariiqay u cilaajiyaan dadka mardaaga ah ee ikti'aabku depressionku hayeen loo keeno nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamay inaynu eegno adduunkan markaynu ku nool lahay dadka kaa liita saxaabadii u soo cabatay wuxuu ku yidhi khabaab ibnularat markuu u yimi ee uu yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo nafti baa laysugu kaayo keenay ee maad ilaahay noo baridid maad ilaahay hiil iyo guul noo weydiisid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi war dadkii idinka horreeyey midkiibaa inta la soo qabto oo god loo qodo lagu rido oo miishaar halka laga saaro ayaa laba loo kala goynayay waxaasina diintooda kamay celinayn yacni idinku waa iska nooshiin un waaba laydin yaro cadcadaadiye kuwa kan labaa loo kala goynayaa maadaama laba loo kala goynaya aanay diintooda ka celinaynin adigu de waa inaad intan yar u adkaysataa dabeetana markaasuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay baan ku dhaartay rabbi diinta tan wuu dhammaystiri ilaa iyo sanca qofku uu ka yimaado ilaa xadramoot isagoo aan ilaahay mooyaane cid kale ka baqaynin masaa'ilka aynu tilmaamayno dhamme waxay sheegayaan in qaabka loo daweeyo qaabo badan ay yihiin waxaa ka mid a baynu leenahay waxay gaaladu u yaqaaniin peak theory oo ah noloshu weji kastoo xuno ay ku tusto weji fiicanna inay yeelan karto inaad aragto inaad ka eeginoo qura dhanka xun ama si kale haddaynu u tilmaamno nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ka kaa hooseeya eeg unduruu ilaa man huwa asfala minkum haddaad adgu xanuunsanayso mid kaa xanuun daranunbaad arki haddii faqri ku hayo mid kaa liito kaa faqri badan baad arki ha eegin inta ku dhaanta ee inta badan waxaad u fiirsataa kuwa noloshoodu kaa liidato dee weli c f yadiinni baa socda ee gaadhiga c f 124209 oo masda ah iyo gaadhiga c y 132940 oo nisana labadaba meesha qayaalin ha laga qaado fadlan gawaadhida ayaan lagu dhimin bini aadamka kale adan naasi ma bannaana marka baabuurta deriska iyo guryaha deriska iyo meelaha aan baarkinka ahayn ha dhiganina meel hagaagsan dhigta yacni waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo barayaa inaad eegto mid kaa hooseeya taa macnaheedu waxa weeyaan inaad ogaato mar walba nicmo inaad adigu haysato maalan qofka aan hantida haysan waxa laga yaabaa inaad aragto mid aan hanti haysan oo caafimaad qaba laakiin haddaad weydiiso wuxuu ku leeyahay oo maxaan caafimaadka ku haystaa derbigaasaan fadhiya gaajaan u liitaaye wuxuu arkaa inaan waxba qabin cagsigiisa waxaa laga yaabaa inaad aragto mid milyaneer ah oo inta macaan iyo barashar iyo balaayo dham isugu timi wixiisii wax ka liqi kari la oo
dunida dabadeeda haddii dhakhtar lagu sheego la yidhaha waxaad haysataba keen waa lagu caafimaadinayaa ogol hadduu kan caafimaadka qaba waxaa layna yidhi bal kuwa buka soo egtay hadduu dhakhtarka tago oo waxa dad jiifa iyo waxa nin liita iyo wax mid maalqabeen aha naftuba haysato uu arko dadka hadduu waraysto oo yidhaahdo war bal warrama waxay odhan lahaayeen waxaanu haysanno caafimaad waa siisan lahay markaasuu garan lahay in taaj saaran yahay laakiin aanu arkaynin waxay yidhahdaan sixadu caafimaadku waa taaj kuwa caafimaadka qaba saaran mase arkaan kuwa buka mooyaane kuwa kale adigu waxa laga yaabaa inaad dayrinayso leedahay maxaan haystaa waad si caafimaad qabtaa waxaad haysataa caafimaad idan nolosha gebigeeduba waa sida qofka mu'minkaa waxaa la faray inaad eegto ka kaa liita iyo ka kaa hooseeya dhibta haysata bale dhibaatadaa dhib lagu daweeyaa hal qisaan idin tilmaami doonaa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku dhacay dagaalkii badar dagaalkii uxud way guulaysteen markii hore gaaladiina way jabiyeen way kala caymadiyeen waa kala carartay haniimadii iyo wixii bay gurteen iyagoo haniimadii iyo wixii guranaya waa tii dhibtu dhacday saxaabadii buurta dambe ilaalinaysay rumaad ahayd inta iskaga yimaadeen is idhaahay haniimada wax ka gurta khaalid oo gaalada la socduunbaa meel godoloola arko xagga dambuu soo maray muslimiintiibuu dhabarka kaga soo dhuftay mar labaad baa muslimiintii la jabiyey muslimiintii hadda guusha haysatay ayaa waxaa ku dhacay jab sheegaya in 70 laga dilo dib loo caymadiyo ay kala cararaanba saxaabada badh baa firdhadkii madiine galay taa waxaa kaga sii daran iyadoo mushkiladdu halkaa marayso ayaa balaaya shaydaan ka dhex qayliyey la leeyahay nebi maxamed baa la diloo laga takhallus intii goobta ku soo hadhay ee markaa dagaalamaysana markay maqleen nebigiiba wuu dhintay ayay iska fadhfadhiisteen ilaa sacd ibnu rabiica axad saxaaba uu soo maro uu cumar iyo rag meel fadhiyuu yidhaah war maxaa qabanaysaan markaasay yidhaha maxaanu samaynaa dee nebigiiba la dilyi aadan uga xumaa sheekha inaan microfonka ka qaado saxaabadii waxaasoo mushkiladii ku dhacday ilaahi subxaana wa tacaala siduu u daweeyey buu ka warramaya markii la yidhi nebigiina dhimaya iskaba fadhfadhiisteen ilaahay qur-aan buu soo dejiyey uu leeyahay waxaa rabbi tilmaamaya id tusciduuna walaa talwuuna calaa axad والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون إلهي وحلي واحد حسطان مركزية عيسين بالليلة النبي قاعد يبدي بسوء النبي قلنا حق الدنبيدين كي يريي ربي وحلي وحيدين كأبا المرية فأثابكم بالليلة غما بغم murugo kala dul saaran baa laydinku abaalmariyay culimmadu waxay yidhahdaan murugada labaad waxay daawo u ahayd murugadii hore waayo fij'atan baa la tasxiix culamaa'i nafsi aayaddan markay sharxaya waxay leeyihiin saxaabadii markii hore way jabeen waa murugoodeen oo haziima ku dhacday mar labaad bay haddana murugoodeen markii la yidhi nebi maxamed ba dhibay tii hore waxay ku ilaabeen tan dambe oo nebigii baa dhintay baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam mar qura fij'atan waxaa caddaaday inaa nebi maxamed dhibana uu dagaalka joogo goobta taagan yahay dabeetana waa farxeen farxadday nebi maxamed ku farxeen waxay ilaabeen wixii hore oo dhan idan labada hammigii hore haziimada waxa ilowsiiyey baa la leeyahay hammigii dambe ah nebigii dhimay markay been noqotayna dib bay u farxeen waxa laga daweeyey xusnigii oo dhan walidalik baa ilaahay leeyahay likay laa taxzanuu calaa maa faatakum fa ahaabakum baa la yidhi hamman bihammin maxaa loogu abaalmariyey hamiga dul saaran likay laa taxzanuu calaa maa faatakum baa ilaha yidhi si laydinka masaxo tii hore oo wixii hore a idinku dhacee mashkiladaha a u ilowdaan idan balaayooyinku way ismasaxaan iyadoo balaayo ku haysato mid kaa daran haddaad aragto taadii waad ilaabaysaa adigoo balaayo ka badan rajaynaya hadday yaraato maalan gaadhaa kula qallimay adiga iyo afartaadii carruuraba aad mi yarbaashay hadhow baad soo mirowda bal warraba baad tidhi markaasaa lagu yidhi yararkii labaa dhintay waxaa laga yaabaa inaad tidhahda alxamdu lilahi rabbi alcalamin waayo waxaad tilahayd afartiiba tage
laakiin markaan laba qura waad ogashay haddii lababa soo hadhay ilaan halkaad joogtay aad ka fakaraysay waxa ahayd inaad afartaba weydo laakiin haddii lagu yidhi war labaa weli kuu nool waxaa laga yaabaa inaad u aragto musiibadu inay khafiif tahay idan masaa'ibtu waxay yidhaahdaan culammadu badhba badhka kale waa lagu daweeyaa walidaalik baa waxaa la leeyahay war dadka kale dhibtu haysta arka waxaan ku soo koobaynaa waqtigii oo dhammaadaan malaynaya waqtigoos ka yar daraaddeed waxaan ku soo koobaynaa waxyaabaha wax lagu daweeya waxaa ka mid ah xusnu dan qofka warwarkiiyo walbahaarkani ku dhaco marar badan mala xun buu qaataa dabeetana wax walba uu ka shakiyaa inaad maxmalka fiican saarto dhakhtar baad tagtay dhakhtarkii baad hore weyday waxaa laga yaabaa inaad tidhaha inuu ila kulmaa baanu doonaynin ama ninkan waa isnacno inuu daweeye ma rabo waqtigii waa gaadho waxaa laga yaabaa inuu faylkaagii waayo uu daydaeyo waxaa laga yaabaa in gaadhigii uu soo socday traffic jam dhacyo aanu meeshaba soo gaadhin waxaa laga yaaba xusnu danni haddaad ku xambaarto warwar kugu hayn mayso haddaad se mala xun markiiba sii qaadato warwar bay kugu reebaysaa walidalik baa ilaahay wuxuu inaga nahiyey yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adann ina bacda danni iimun waxaynu u baahannahay oo ka mida waxyaabaha nolosha lagu daweeyo dhibtu markay dhacdo sida loo tasarufo oo ah inaad u arag mushkilaadka wax weyn ee inaad u aragto shalay baa waxaan idiin tilmaamayay axadu saalixiin la yidhi nin baa la yidhi wuu ku xantay dabeetana sida caadiga ahayd waxay ahayd inaad cadhooto de marka lagu idhaha waa lagu xamanayo qoladaasaa ku maagayso waa lagu hadalhayo waxaasay kaa sheegsheegayeenoo dee waxaad odhan lahayd war waa layga taagla'ayay nimankaas duulkaasi waa duul layga taagla'ayay laakiin waxaan idhi intuu socday hadiyad qaaday ayuu u geeyey ninkii wuxuu idhi niya waxaa la ii sheegay waxaan u baahnaa maalinta qiyaamaha inaad tarto xasanaadkaagii baad qaybi siisay dee anna hadiyadda baan kuga abaalguday hadiyadda tan qaada buu yidhi xantii wuxuu u arkay inay tahay dee nin xasanaadkiisii wax ka bixinaya wixii uu shaqaystay salaadii iyo soonkiisii qayb ka miduu kuugu deeqay intuu ku xamanayay waayo aakhire waxaa la yidhi dee marka laysu soo tubo qof walba qofka kale waa looga goynayaa oo xasanaadkaaga dadka loo qaybinaya haddii xasane laga waayana sayi-aadkood idan haddaad si fiican u fakerayso depressionku iyo cadaadisku qofka kuma dhaco waxaa ka mida baynu leenahay qofku inuu garto amal ina maca alcusri yusra nolosha inaad amal dhigin inaad garato dhib kasta oo jirta in berrito sayajcal allahu bacda cusrin yusra in ilaahay subxaana wa tacaala u fudaydinayo waxaan ku soo koobayaa wakhtigoos ka kooban daraaddeed xusniga iyo igti'aabku marka hore qofka muslimkaa waxa keena inuu ka dheeraado oo haddaad towxiidkaaga iyo caqiidadaada iyo diintaada si fiican u rumaysato adduunka iyo qiimihiisa si dhaba u fahamtid aakhiro iyo waxa dambeeya abaalmara si wanaagsan u garatid imtixaanka rabbi iyo qadaa iyo qadarkiisa iyo adiga inta kaaga soo hagaagtay si wanaagsan aad u fahamtid tiiraanyoon maysid wax kugu dhacay ka tiiraanyoon maysid laakiin qof kasta uu xanuunku ku dhacay waxaan leenahay dhakhaatiirta la xidhiidh atibada nafsiga ahi waa dhakhaatiir wax daweeya waxaynu qaacido soo sheegnay way isticmaalaan zaa'id waxay kaloo isticmaalaan dawo zaa'id qaarkood waxay kaloo isticmaalaan kaharaba electrical shock midna ogsoonow soomaalida waxyaabaha ka qaldan waxaa ka mid ah xanuunada qaar bay ceeb u taqaanaa qarisaa qaarna way sheegtaa war xanuunada waa isku mid haddii wadna xanuun kugu dhaco iyo haddii beer xanuun kugu dhaco iyo haddii neerfu ku xanuun iyo hadduu madaxu ku xanuuna waa isku mid midna adigu maad keenin mid walbana ilaahay baa keena waa isku mid oo mid walba cudwi jidhkaaga gobol ka mid unbaa buka ka wadnuu xanuunaya wuxuu odhanaya aniga wadna ay xanuunayo waa liitaa ka madaxu xanuunaya se wuu qarsanaya wuxuu odhanaya waxa lagu odhan doonaa wuu waashay iyo wuu waalaya iyo hadduu yidhaha madaxay xanuunayana kuwan kale laftooda buuf isku soo ridayo o odhanaya war wuu waashay iska ilaaliya war ma aha waa xanuun caadiyo qofka bini aadamka ku dhaca
depressionkuna waa xanuun xataa haddaan la daweynino qofku si caadiya u dhaqmo laga yaabo 9 months meelahaas inuu kaga bogsado laakiin hadduu dhakhtar si fiican ula xidhiidho waqti yar buu kaga bogsanayaa biidn illaahi tacaala idan nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ilaahay xanuun ma soo dejin ilaa daawadiisana wuu soo dejiyey ee addoomaha ilaahayow isdaweeya buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midna isku eega lama odhan isdaweeya xanuun laga yaabo 10 midho kiniina inaad qaadato inaad kaga bogsan lahayd ayuu qofku qarsanayaa ilaa intuu marada ka dhiganaya ama ka waalanayo ama wuu dafiraya isku dayayaa inuu yidhaahdo war ma xanuunsanayo waxaan idinkula talinayaa waa xanuun bini aadamka ku dhaca xanuunada kalena la mida kaa calool xanuunku hayo iyo kaa wadna xanuunku hayo iyo kaa beer xanuunku hayo iyo kaa maska xanuunku haya mid walba cudwi ka mida jidhkiisa xanuunaya midna isaguma keenin mid walibana daawuu leeyahy mid walbana waa la daweyn karaa dhakhaatiirta madaxa daweysaana maaha dad dadka darag u nacabsiiyo oo wax lagu waasho ama wax doqonkaa dhigaya ku siinay waliba daawo caadiya idan waxaan idinkula talinaya waxa weeyaan kow qofka mu'minkii hadday masaa'ilkan khaarijiga iyagu iska daweyn karaa laakiin kuwan iyo kuwa kaleba haddaad la tashato tabiibkaaga waliba khaasatan waxaan jeclaan lahaa tabiibka nafsiga inuu tabiib nafsi oo muslima noqdo waayo kaasaa garanaya sida aad u fakeraysa rasmiga maskaxdu hadday si qaldan u fakerto waxay soo daysaa awaamir qaldan ama qanjidhada jidhka ku jira dheecaamada soo daaya waxay soo daynayaan dheecaamo qaldan oo ama dheecaan loo baahnaa inuu soo baxaa baan soo baxaynin dabeetana jidhku siduu wax u maamulaya qaldamaya ama dheecaan quantity yar looga baahnaa buu jidhku dheecaan badan ka soo daynayaa dabeetana jidhku siduu u shaqaynaysaa qaldamaysa xanuunada nafsigii intooda ugu badan haddaad qarsatana xanuun cudwiyana way sameeyaan calool xanuun bay keenaan rheumatism bay keenaan wadna xanuun bay keenaan maxaa la yidhaha sonkorow bay keenaan blood pressure bay keenaan kullu dalik xanuun nafsigi wuu keeni karaa bay culammadu yidhahdaan marka intaad xanuun nafsiyo fudud iska daweyn lahayd hadhow yaad la eedaadin dhiikar iyo kaadi macaan ama wadna xanuun yaad la eedaadin xanuunku waa isku wada mida waxaad u baahantihiin haddaad buufis dareento iyo haddaad buuq dareento haddaad seexan weydiiyo hadday cadhadu kaa badato haddaad cadho badan dareento haddaad shaki badan dareento haddaad wax maqmaqasho sidii qof codaduun maqlaya ama in la xamanayo haddaad midaba aragto qof uun ishiisu mararka qaarkood dad khayru caadiya wax arkayaan marar badan baanay jibankan iyo waxaan ay isu sheegaysaan ahayn ay yihiin xanuun psychological oo u baahan inaad dhakhtar tagto idan ikhwatii fi lcaqiida ugu horreyn waxaan ku leenahay caqiidadaada saxo waa sax wardigaaga badiyo dikrigaaga laa ilaaha ila allah subxaana allah alxamdu lilah salliga nebiga badso waa lagu degaa cibaadaadkaaga badso rabbigaa kalsoonidiisa badi basharka iyo waxay walaaqayaan ilow intaa kadibna haddaad daawo u baahantahay isdaawee oo ayar dhakhtar tag asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاه الله خير الجزاء شيخنا الشيخ مصطفى حاجي إسماعيل هارون بسم الله إن شاء الله تعالى وحجعلان لي سؤالها إن نقضان سؤال كساب سن موضوع سي مركاسي وهاك سنته